taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Saree Guuta Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow iyo geekriyadanka nagadi magaalada Baydhabo Harunta gobolka Bay la safar shagusan ka maqnay magaalooyinka Muqdisho iyo Baraawa walibana kulamo isla qaaday inta magaalada Baraawa isu ka sugnay saraakiil guutada lixaad ee qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka iyo han amisom fadhiyo magaalada Baraawa way bana ku wada hadleen sidii loo xoojin lahaa wada shaqeynta waana dardar gelin lahaa howlgallada ku dhanka kooxda nabadgelyada al-shabaab ka baasadaaya waxaan dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo anigoo safar shaqo ugu maqnaa magaalada Muqdisho iyo Baraawe taas oo aan ugu maqnaa hawl shaqo oo qaybta lixdanaad ay iska leedahay runtii waxaan soo aragnay ciidanka degan Baraawe ee guutada lixaad taas oo aan u kurgalaynay in ay wada shaqeynto ciidanka iyo shacabka sida ay tahay iyo ciidanka amisom ee meesha degan runtii wax mushkilada kama taagnayn waxa kale oo jiray hawlo gaar ah oo shaqaaqad ka dhacday meesha Baraawe oo ku saabsan maamulka degmada iyo ciidanka taasna waan u dhabagalnay kulay go'aana ayaa laga soo gaari doonaa insha Allah magaalada Muqdisho muddada aan joogay waxaan ujeedada u joogay waxay ahayd hawlo ay qaybtu leedahay oo u badan dhinaca taakulaynta iyo isgaarsiinta wax kasta sidii loogu talagalay ay noogu soo dhamaadeen oo guul ah taliyaha qaybta lixdanaad Janaan Maxamed Sheekh Cabdullaahi Ciirow oo hadajay si wada iyo saraakiil iyo ciidanka fariintiyo si xoojin howlgallada ka sifay kooxda nabadgelyada al-shabaab waan lambahay intii ciidamada figjinaan dheer ee muujin oo ka mashquulna dana kala waxaad kala la socotaan in bariyahanba howlgal uu ka socday gobolka Shabeellada Dhexe Jowhar area taasoo hormuud uu ka ahaa taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Odowa oo ilaa hadda howlgalkaas uu socdo taasoo loogu dan leeyahay in lagu yareeyo ama lagu burburiyo saldhigyada cadawga shabaab uu ka kulaalay caasimadda dalka ee Muqdisho runtii guul waaweyn baa laga gaaray stilna waa howlgalkaas waa socda waxa suuragal ah in cadawga firdadkiisa uu nasoo saameeyo qaybta lixdanaad fadhiyadeeda kala duwan sida daraadeed dhammaan colalka madaxda guutooyinka ururada waxaan farayaa inay ka feejignaadaan firdadka cadawga oo laga yaabo in na saameyso isla markaas la bilaabo howlgal la mid ah kan ka socda Shabeellada Dhexe si isku mid ah si howlgalkaas loo xoojiyo isla markaas looga hortago dhagaraha cadawga uu maleegi karo maadaama lagu jiro xilli doorasho la filayo dhawaan waxa laga maarmaan ah in ay ciidamadu hawl galaan oo muxuu ah laga baxo muxuu dhufeysiyada oo loo kaco dhinaca cadawga isla markaas waxaan doonaynaa in lagu tirtiro dhibaatada ay shacabka Soomaaliyeed ay ku hayaan cadawga manaxyaasha insha Allah maalmaha soo socdana waxaan rajaynaynaa in la bacsan doono cadawga meel kasta oo uu joogo oo ama laga filayo waxaan kaloo rabaa inaan halkan ugu jeediyo ciidanka iyo saraakiishaba in ay ka digtoonaadaan inay ku milmaan ciidanka iyo shacabka maadaama laga yaabo dhawaan inay dhacdo doorasho
siyaasiyiintana ay dhici karto inay adeegsadaan askarta iyo saraakiisha waxaa loogu digayaa inaan marnaba ku milmin siyaasadda ay ku ekaadaan difaacooda iyo amniga loogu talagalay cadowga haddii looga baahdo caawimaad si sharci ah ayay ku imaan karaan ama ku hawlgelayaan laakiin cid looga aabiyeelay ma jiro in uu xadgudub sameeyo ama nin kursi doon ah nin kale intuu yimaado nin kale iyo handad iyo dhibaato ku sameey in loo adeegsado saraakiishii askartaba waan ugu digaynaa insha Allah waxaan idin rajaynayaa inaad waanadaas iyo amarkaas isku jiraba aad qaadataan Faisal Daa Hussein warbaahinta Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo